jaamacadda Adnaadan ayaa xaflad qalin jabin loogu qabtay arday dhakhaatiir oo ka qalin jabiyay jaamacadda Adnaadan waxaana ka soo qayb galay agaasimaha guud ee Cisbitaalka Hargeysa Barasabka Gobolka Maroodijeex xildhibaano gudoomiyaha tacliinta sare mas'uuliyiin dhakhaatiir arday macallimiin waxaana ugu horeyn halkaasi ka hadlay dhakhaatiiray waxaan kaloo dhammaantood adduunyo bay ka hadlaan ka xoolo buu ka hadlayaa kan kale malcaamadda furta malcaamadda lacag buu ka hadlayaa dhakhaatiirtu waxay ka hadlaysaa naftuna waxay u baahan tahay aad iyo aad in looga fiirsado dhakhaatiirta waxa weeyaan waxa muhiim ah oo markasta muhiim ah ma aha lacag iyo dhaqaale inaad raadso waxaad raadinaysaa waa sharaftu waxa weeyaan qofka bukaanka ee wax u tarto ayaa ku noqonaya advocate isaga oo waa dhakhtar hebel u taga dhakhtar hebel wax yaqaaneen maanta imtixaankeedii bilaabaya dadweynaha imtixaamaya ama dhakhtar fiican baad noqon ama dhakhtarad fiican baad noqon ama waxaad noqon la ma hebel ba waan inaga haynoo geeynin inaga daay marka waxa weeye maanta dhakhtarnimada way diisinayna kale title-ka way diisinayna laakiin dadweynaha way idin dambeeyaan markaas la oranay dhakhtar fiican iyo yahay ninkaas dhakhaatiirta waxaan soo jeedinayaa koow inaanay markay qalin jabiyaan office fadhiistaan ay bukaanku u yimaadaan inaanay isweynaysiin oo aanay tuur isu yeelinayn sida ay markay u socdaan aad iyo aad baad uga nasiib badan tihiin ardayda dhakhaatiirta jaamacadaha kale barata adigoo haysta kalaaskii oo ku dhex yaala jaamacadda oo isbitaalkiina uu ka mid yahay adigoo haysta laboratorygii aan meel kale u raadinin ee ka dhex helay kalaaskaaga iyo goobtii caafimaadka 7 sanadood bay ayay soo dadaalayeen waa waqti dheer waa socod dheer waa masaafad dheer very long distance ayay soo jareen dadaal badan bay soo sameeyeen waan u qiraynaa ardaydaasi 7 sano ay soo dadaalayeen 7 sano cilmiga soo baranayeen mirdalkiisii maanta uu bilaabmaya waayo markuu bulshada la kulmo sidaa doctorka hore uu sheegay aqoontii rasmiga ah markaas uu bilaabmaysaa marka la qalin jabiyo markaasay inta ugu badan hawshu bilaabantaa waxaan leeyahay ardayda waxaan kula dardaarmayaa kulli waa dardaaranune shaqo wanaaguna waxa uu ku yimaadaa kow inaad waxa weeyaan fiilka aad gelayso aad jeceshahay munaasabadeyda markasta waxaa iskala kalaaska baxayka ka hooseeya juhdi baan gelinay dadaal baan gelinay si ay u qurux badnaato alxamdulilah ilaahay sidii aanu ku wada ugu dhacday dhakhaatiirtii maadaama ay in badan laga maqan tahay majority way nagala soo qayb galeen mid ka mid ah khubuurada imtixaanka qaaday ayaa waxa uu ka warramay hanaankii imtixaanka ay u qaadeen oo uga mahad celiyay dadaalkii ay muujiyeen dhakhaatiirta cusub ee imtixaanka galay isagoo u soo jeediyay aqoonta ay barteen inay ummadooda ugu shaqeeyaan jiilalka dambena uga faa'iideeyaan mid ka mid ah dhakhaatiirta khubuurada ayaa jaamacadda Adnaadan ku ammaanay inay ka mid tahay jaamacadaha ugu tayada wanaagsan ee dhinaca jaamacadaha waxaanu u rajeeyay ardayda ka qalin jabisay inay noqdaan kuwa bulshadooda siiya adeeg caafimaad oo tayo leh aad ayaan ugu hanweynahay inay halkan la joogaan khuburo caafimaad oo marti inoo ah kuwaasi oo aynu doonayno inaynu ka qaadano waayo aragnimadooda iyo talada Dr. Adnaadan Ismaaciil ayaa sidoo kale waxay ku dheeraatay marxaladihii uu soo maray cisbitaalkeedu waxaanay ka warantay dadkii gacanta ku siiyay dhismaha cisbitaalka waxaanay xustay inay maanta ku faraxsan tahay inay cisbitaalkeeda ka qalin jabiyaan dhakhaatiir waxaanay ugu hambalyeysay qalin jabintooda waxaanay u rajeysay inay noqdaan dhakhaatiir fiican oo dalkooda si fiican ugu adeega ugu dambeyntiina waxaa goobta ka hadlay Cabdirasaaq Mawlid Cabdi oo ku hadlayay magaca shirkadda Prime Care waxaana uu sheegay inay qalab caafimaad oo ay ku howlgalaan ardayda qalin jabiye ay guddoonsiiyeen annagu ka Prime Care ahaan runtii sharaf weyn bay noo tahay inaanu xafladan qiimaha badan runtii nalagu soo maamuso runtii waxaanu nahay bahda caafimaadka wada shaqayn fiican baa runtii naga dhaxaysa waxaan si gaar ah runtii halkan uga mahad celinayaa in runtii Adnaadan family amba runtii qaybaha Adnaadan
gaar ahaan cisbitaalka weyne teaching hospitalka iyo jaamacaddaba inay ka mid yihiin runtii cisbitaalada sida fiican aan u wada shaqayno